cuqaasha dhalinyarada kala duwan ee ku dhaqan magaalo ganacsiyeedka degmadaasi Togo Jaale oo maanta la hadlayay telefishinka caalamiga ee Somali News ayaa waxay ka maqraati kaceen waxqabadka la taaban kara ee ku kacay muddadii 6 bilood ee uu xilka hayay wasiirka wasaaradda horumarinta maaliyadda Somaliland mudane Yuusuf Maxamed Cabdi. cuqaashan iyo dhalinyaradan ayaa xusay in 6 bilood ee xukuumadda mudane Muuse Biixi Cabdi talada dalka haysay wasiirka wasaaradda horumarinta maaliyadda Somaliland mudane Yuusuf Maxamed Cabdi oo ahaa wasiirka kaliya ee waxqabad la taaban kara ku kacay. sidoo kale waxay hoosta ka xariiqeen in wasiirka wasaaradda horumarinta maaliyadda Somaliland uu badiba shaqaaleysiiyay dhalinyaradii iyo aqoon-yahankii kala duwan ee ka soo baxay jaamacadaha dalka. cuqaasha iyo dhalinyaradan oo arrimahaasi arrimo kale ka hadlaya ayaa waxa kamid ah hadaladooda. halkan hambaliyo bogaadin uga diraya wasiirka Somaliland mudane Yuusuf oo ah wasiirka horumarinta maaliyadda aqoon badan oo leh arrimaha dakhliga iyo maaliyadda. wasiirku wuxuu muddadii 6 bilood ahayd oo joogay u qabtay wax la taaban karo taasoo ka tahay dardargelinta hawlaha dakhliga sida cashuuraha bariga iyo waaxda kastamada. intaa kadib wasiirku wuxuu shaqo abuur u sameeyay dhalinyaro badan oo dalka joogtay oo kala duwan kuwaas oo shaqo geliyay. wasiirku muddadii uu meesha ku sugnaa wasaaradda maaliyadda oo wasiirka ka ahaa wax badan oo la taaban karo oo lagu dirsado ayuu qarankan u qabtay ayaan odhan karnaa. kale oo uu qabtay isagoo oo shaqada u leh khibrad dheer kana soo shaqaynayay wasaaradda maaliyadda muddo badan aqoonteediina leh nin master oo ka baxay jaamacadda caanka ee shaqaalaha dawladda Itoobiya la yiraahdo Ethiopian Civil Service College ama afka xabashiga lagu yiraahdo Ethiopian Civil Service College la yiraahdo isagoo shaqaalaha khibradda u leh u kala anba bixiyay gobolada kastamada sida uu maamulaha kastamka wajaale uu noogu keenay oo nin aqoon iyo karti iyo hufnaan u leh waliba intaa ay dheertahay daacadnimo. aad iyo aad baan u soo dhaweynayaa isagana waxaan leeyahay hambaliyo hawshaada halka ka sii wad. anagoo dhalinyarada Togo Jaale waxaan halkan hadballaan ugu soo jeedinaa wasiirka wasaaradda maaliyadda Jamhuuriyadda Somaliland oo muddadii koobnayd uu hayay dakhliga aad u kordhiyay haddii ay noqoto kastamada haddii ay noqoto cashuuraha bariga. waxaan leenahay markaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland Muuse Biixi Cabdi madaxweyne waa inaad keentaa oo kale sida wasiirka wasaaradda maaliyadda Jamhuuriyadda Somaliland oo kale nin karti iyo aqoon le waa inaad keentaa. aad baan ugu mahadsantahay madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland sida wasiirka wasaaradda Jamhuuriyadda Somaliland aad u keentay. waxaan kaaga fadhinaa inaad wasiirada kalena qaar sidiisa u shaqeeyo. wasiirka maaliyadda ee xukuumadda 6 bilood jirtay maanta ka shaqeynaya xukuumadda maaliyadda wasiirku halkuu gaarsiiyay maanta horumarka 6 bilood ku salaysan heer ay weligeed gaadhay Somaliland maaha. wanaaga annaguna waan ku hambaliyaynaynaa hambalya baanu leenahay waan ku soo amaanaynaa haddaan nahay magaalada Togo Jaale odayaasheeda aan ka mid nahay saasaan ku hambaliyay. waxaan halka ka marxaati kacaya wasiirkaasi maaliyaddu inuu dakhligii kor u qaaday inuu dhalinyaradii wixii jaamacadaha ka soo baxay shaqaaleeyay ayaa halkaasi ka cad. marka waxa weeye aad ayaan wasiirkaasi u hambaliyaynaynaa oo ka mid ah odayaasha Togo Jaale aqoon-yahanada Togo Jaale. waxaan halkan ka marakacaya intii xukuumadda ay dhisnayd Muuse Biixi Cabdi muddada 6 bilood ahayd inuu wasiirka maaliyaddu mudane Yuusuf in dakhligii kor u kacay daayartii aad loo shaqaaleeyay waxqabad badan la sameeyay. muhiimna waxa kor u qaadka dhaqaalaha iyo shaqaaleynta dhalinyarada si horumar lagu gaaro. waxaan u qirayaa inuu yahay mas'uul dhab oo wax qaban kara waxna wadi kara. waxaan leeyahay kor u soco mudane wasiir mudane madaxweyne fariinta cad baan kuu soo gudbinaynaa haddaan nahay odayaashii ama aqoon-yahankii Togo Jaale. wassalaamu calaykum. halkan uga jeedinaya muddadii uu jiray wasaaraddu ay ahayd wasaaraddii maaliyadda oo ahaa mudane Yuusuf
dowladda musabiixi waxaan qirayaa in koruqaadka dakhliga tog wajaale uu soo magacaabay nin daayar oo aqoon-yahana oo karti u leh inuu wax qabto uu wax ku taro uu hawshiisa si fiican oo ixtiraam leh oo qiyam leh uu ummadda ugu shaqeeyo qadar cabdi cabdulaahi telefishinka caalamiga ee Somali News degmada Tog Wajaale.